buu mahadsan yahay gudoomiye ku-xigeenka dhalinyarada Somaliland waxaanu israacin doonaa inagoo ku sii siqeynaa oo bartanka kaga jirnaa munaasabadeenna shirweynaha saddexaad ee dalada ganacsiga Somaliland ee Sofa qaybta dhalinyarada ayaynu israacin doonaa waxaanu yeeri doonaa xubin kamid ah dhalinyarta magaalada Berbera oo ku hadli doonta isla afka dhalinyarta ee gobolka Saaxil oo aan leeyahay ku soo dhaw Ridwaan Yare oo ku hadli doona afka dhalinyarta waxaan ka codsanayaa inuu waqtiga inoo soo koobo maadaama oo aynu waqti nagu filan aynan haysan madax badan inay noo harsan tahay waxaan leeyahay waqtiga inoo ilaali alxamdulillah horta marka hore ilaahay baa mahadle kaasoo iskugu keenay meeshan inakoo aan marka hore uga mahadnaqayna halkan ilaahay casa wajal خالق inoo ogolaaday inaynu halkan ku kulanno inakoo caafimaad qabna lixdeenu lixaadna inoo dhan yihiin ayaan marka hore halkan uga mahadnaqayaa mahadnaqaas oo aan la soo koobi karayn ilaahay casa wajal nimcada uu siiyey ayaan halkan uga mahadnaqayaa insha Allah tabaaraka wa taala waxaan leenahay ilaahay nimcada nasiisay noo labanlaab taanu haysanana noo siyaadi inta aan haysanna ilaahay iyaga sii waa markaan u soo noqdo kelmadeeda dhalinyaranimada annagu waxaan u ciyaaraynay kooxda isku taga dhalinyarada Soofe muddo 3 sano ayayna soo garab taagnaayeen dalada ganacsatada Soofe taasoo aanu ka soo weynay guulo badan gobolada galbeedka iyo bariga aanu fisidiyo ku tagnay insha Allah tabaaraka wa taala annagoo sidana magaca dalada Soofe oo aanu ku ciyaaraynay insha Allah tabaaraka wa taala sanadkii 2019 bilowgiisii waxaanu booqanay magaalada Boorama waxaanu dhigayaga la ciyaarnay isku taga iskaashi